جعلك نبوري نبابلي أبشر موي أسرار مالي wiilkii wuxuu siray markaasuu weydiiyo wuxuu yidhi maaragtay ii waran raashinkan lagu siinaya baa lagu siinaya maxay tahay sanadka markaasu wuxuu yidhi maalin aniga waxaan ahay agoon hooyaday iyo walaashay iyo aniga saddexdeenaasaan nahay walaashay ayaa qoryaha soo gurta banaanka soo jebisa hooyadayna way gadaa saas baa aniga nolosha iskuulka ayaan ku wadaa buu yidhi marka wuxuu yidhi hooyadii marka gabadhii ayaa naga xanuunsatay oo qoryaha keeni jirtay runta iyadoo gaajo ay hayso ayaan maalin iskuul ka soo baxay waxaan arkay dadka masaakiinta ah oo darshadan taagan oo sugaayan cuntada soo haray inay cunaan markaas anaa iska dhex istaagan markii cuntadii la siiyey dad way boobayen anigana tartiibaan waxa fiirsanayo marka ninkii kushiinka madaxda ka ahaa ama raashinka madaxda ka ahaa marka uu intii wuxuu yidhi adeer adigu arday baa tahay dharka waxaa wadataa iskuulka marka maarata waxaan samaynaynaa adigu si khaas ayaa wixii soo haray dhinac bac kugu shubaynaa iyagana inta kale ha cunaan hadda kadib ayaga ha dhexgelin waayo dee ardaynimaa kaa muuqato buugtayda wadataa dharkii iskuulka wadataa marka damiirka iyaga maarata ayaana gubanaya inaan fiirsano aduu maarata cuntadii dhulka ugu maarata soo hartay dhinac ka boobayo waaya maanigi maalintii labaad markaa imidna aamur imid bac ay diyaara marka ninkaan mataqaanay wuu yidhi ma aqaan weligay ma arkin runtii cabdiqaadir wuu isbedelay dareenkiisa aad iyo aad buu isku bedelay habeenkii ayay wada sheekaysan jireen waxay riboor kala qaadan jireen gurigooda ku caweyn jireen iskaaka iyo marna kitaabkooda iska tumin jireen muusigooda iska ciyaari jireen iska sheekaysan jireen inkastoo yar kale xaas leeyahay aanay xarun lahayn gabar iyaduna wasaaradda waxbarashada ka shaqaynaysa uu qabay ninka madaxda ka ah meesha yani waxaa jawi yaroo waxay samaysan jireen habeenkii ayay ku sheekaystaan markaasuu ninoo maanta sheekadiiba uga sheekeeyey isagoo aad iyo aad isu bedelay markaas ninkay wuxuu ku yidhi ninoo cabdiqaadir waxaan samaynaynaa runtii ninkaas tallaabo fiican oo geesinimada qaaday waana nin wanaagsan ninka kushiinka haya laakiin waxaan samaynaynaa waa yarka kushiinka waa in shaqo laga siiyo qaybta nadaafadda waxba garaatiis wax iska qaada ah ma jiraan la sharciyeeyo la nidaamiyo 2 sac waa inuu shaqaystaa oo dhaqaa maaragtay shaqaalaha dhaqaaya kushiinka oo kamid noqdaa lacagna shaqaalahana lagu diiwaan geliyaa halkaana noloshiisa ka dabarto ana iska daayo darashada soo istaagayo ana shaqaalaysiiyo runtii wiilka markaas wuxuu dhiganaya fasalka 8 ayuu bilaabayay waxaa loo sheegay inuu shaqaale helay 2 sacna oo yimaado oo la saaxiib ma jirto wax maartay la sakaasinayo waa inaad dhididkaaga lafaanta u soo dhacsataa barataa intaad yartahay inaad dhididkaaga u soo dhacsato runtii aad iyo aad ayuu ugu farxay in uu shaqaale noqdo waxayna ka dhigteen saaxiib kamida kulliyadooda yaalkoodu fiidkii inuu yimaado buugta soo qaato wixii caawinaad cashar u baahan yahay ay ka caawinaan ay la sheekaystaan labada sarkaal markay aadayeen magaalada muqdisho ee inta badan xamar ka yimaadeen saxiix ay ku tagaan ama ay shaqo u tagaan oo kale ay dhan u soo galaan yani waxay noqdeen maaragtay wiilkii noloshiisii runtii way isbedeshay hooyadii iyo gabadhii qaabkii nolosha ay ku jiraan mid ka sarreysay galeen laakiin xaafadda waa dad laga yaqaanay noqdeen ayagu may tegin weligood alool laakiin wiilkooda iyo xiriirka ka dhexeeya iyo cabdiqaadir iyo nin wiilkan iyo gabadha intuba reerka way yaqaanaan hooyo iyo habeen bay ka sheekeeyaan markuu ka yimaado way soo qaadaan way keenaan iyagoo xaafadda soo gelin markaa uu ka sheekeeyo sida ay dadkan u wanaagsan yihiin sida u naxariistaan sida ay soomaalinimadooda iyo yani runtii hooyadii iyo abada waxay yaab noqotay marka cabdiqaadir ninka la yidhaahdo gabadhii la dhalatay wiilkan iyadoo aan arkin ayaa dareen jacayl u masuulmay cabdiqaadir sida uu walaalkeeda ula shaqeeyey iyo sida uu Soomaali yani aad iyo aad habeenkii markay seexanayso maskaxdeeda unbuu ku wareegaan noloshu marba si isu bedeshaa waxaa dhacay marka gabadhii ayaa waxay codsatay gabar shaqaale ah
وتروح waxaan u baahanahay in gabar shaqaalaha la keeno guriga ila joogta waxaan laga codsaday wiilkii inuu hooyadiis u sheego gabar raadiyan markaas walaashay baa joogta oo maarta shaqo haynin waayahay baa la yiri laakiin hooyadii way ku xijisay shurdii way tiri aniga waraag badan baa noo qabateen gabadha walaashay way u imaanaysaa laakiin wax dhaxaga iyo wax interest oo dhaqaalaha oo maarta ay rabto ma jirto sida aad noo saacideen iyo wanaaga naga dhaxeeya ayaan kala bedelanaynaa kaliya annagan maarta wanaag sameynayna gabadhii ayaa gabadha loo keenay si uu caawiso runtii maarta ayaguna si wanaagsan bay sameyn jireen maadaama ay diideen in lacag gabadha ay qaadato ay sameyn jireen khamiis kasta waa la wadi jiray gurigeeda ay la geyn jiray si ahayd maalinta jimcada ah reerkeeda uu soo joogto laakiin cunto badan ayaa loo qaadi jiray oo ka badanba cuntadii ay maalintii toddobaadka shaqaysatay kaashna maarta looma dhiibi jiray laakiin cunto bariis saliid ayaa loo qaadi jiray guriga loo geyn jiray sheekada habeen bay socotay fiidkii dambe iyaga oo saddexdii isla fadhiya labadii habroodna ay gudaha ku jiraan ayaa Cabdiqaadir baa soo qaatay gitaarkiisii wuxuu tumayay naku jecel adduunyada yaa uwaca waxnuule nabadlana ayuu tumayay saarax caanka ahaa ayuu tumayay marka gabadhii tiis ilowday iyadoo kushay ku jirta ay يعني sida ay tahay isku qaaday waan loo aamusay ilaa ay ka dhamaysay markay dhamaysay loo saacideeyay markaana idxishood la carartay gudaheeda gashay halkaa waxaa ka bilaabmay dareen isdaba jooga oo jacayl waxay ogaatay gabadhii yarku qabay madaxda ah in gabadhaan aad iyo aad midka u jeceshahay waxayna ku guubaabisay in wiilkaan isiyada isaga wiil ahayd oo gabadhaani oo jacaylkeeda wax kala qabto run ahaantii jacayl aad u yaablayaa dhex maray waxay goosteen inay isguursadaan markay isguursadaan inay goosteen runtii waxaa Cabdiqaadir faamilkiisii aad bay weli gabdhihii la dhashay sidee gabar noocaas oo nolosha heerkaas ku jirta aad u guursanaysaa mayur gabadha aad baan u jeclaaday runtii waa gabar qurux badan gabar qiimo leh gabar aan yaab u leh si kasta uu ka dhaadhicin waayo ilaa iyo gabdhihii ay fakaraan yidhaahdaan malaha way ku sixirtay Cabdiqaadir oo ninkii xaaskiisii gabar jeclaadaba way miyay sixirtaa arrin yaab maya way ku sixirtay ilaa inaad guursato maaha laakiin Cabdiqaadir wuxuu u aansaday inuu jacaylkiisa ka dhabeeyo reerkiisana dhisto waxayna maartay arrintii kusoo gabagaboobaysaa ama kusoo gabagabooday Cabdiqaadir oo xaaskiisii ku guulaystay wax walba uu la sheegay inuu diido uu ku guursadeen nolol aad iyo aad u farxadna ay dhex martay runtii waxaa moodaa in Soomaalida marmarka qaarkood dhaqankeena ku mid yahay hadduu wiil gabar jeclaado in inta badan la yidhaahdo dee ama ay xaas iyo reer isku wanaagsan la arkin lahaa way sixratay ninka marka jacaylka iyo sixirka too yaa weyn waa su'aal iyadana furan marka malaha jacaylka labaadiisa sixir aan dhihi karnaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.